waayahay su-aashaas waxay ahayd su-aashii u dambeysay tartankeena caawa waxaan mar dhow insha Allah guddiga noo soo gudbin doona natiijadii iyo dhibcihii ay ku kala baxeen labada group Abubakar iyo Dhagaxtuur caawa habeennimo ay khamiis soo galayso habeen dambe hadduu Ilaahay yiraahdo waxay noqon doontaa habeen jimcaha waa nasiino fasax ayaan wadanahay hadduu Ilaahay yiraahdo habeenkii sabtiga ayaa tartanka la isugu soo noqon doonaa waxaan kaloo intaas aan sii raacinayaa inaan u mahad celiyo labada group ee caawa tartamay si qurux badan mar koowaad iyo mar labaad iyo daawadayaashuba si gaar ah waxaan ugu mahad celinaynaa hay'adda IHAD oo mar walba taabagelisa qurxisa kana fakarta tartankan hadda ka socda ee lagu maamusayo bisha barakeysan ee Ramadaan ee xarunta ka socda aad bay ugu mahadsan hay'adda IHAD iyo groupkeeda mar walba waan u mahad celinaynaa sida wacan ay maaragtay ay u dhiirigelinayaan caruurta aqoonta haddana natiijada ayaa soo gudbin doona natiijada waxaa noo soo gudbin doona guddoomiyaha tartanka dhegeysi wacan insha Allah بسم الله والحمد لله ونعم بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا مهد علمي يا الله سبحانه وتعالى مر لغات مهد علمي يا تريا حردة عليها سبارة على قاب لو آدو جعل إنه هور المريو ندجاله أبيني مالنا كفكره سيدو هور مري لها هو هير سرو بيرسل لها عذبتاني أقون تودا فعن لنا الله قربك إلها قرب وحكى الله مهد بلار الجيدين يا guddiga oo soo diyaariyo su'aalaha kuna dhabar adeego in habeenka sababkan ay ka jaadiyaan soo gudbiyaan natiijada sidoo kale tartamayaasha oo maanta ku tartamaya Abubakar Sidiq iyo Dhagaxtuur sidoo kale daawadayaasha ayagana waa mahadsantihiin leedahay sida quruxda badan aad daawanaysiin ama akhlaaqda leh wiilashayga dahaba haddaan hoos ugu daadego Abubakar Sidiq aan ku hormaro waxaa nasiib u yeeshay in la weydiiyo 8 su'aalood uu ka jawaabay 4 su'aalood halna uu ka faa'iidaystay 4 su'aalood uu qalday uu armusaday 9 dhibcood Abubakar Sidiq marka waxaan leenahay soo dadaal waa hambaliyo dadaal ayaan leenahay Dhagaxtuur sidoo kale Dhagaxtuur waxaa la weydiiyey ayagana 8 su'aalood waxay qaldeen 2 su'aalood waxay ka faa'iidaysteen 3 su'aalood waxay saxeen 5 su'aalood dhibcihii ay aruursadeen wuxuu noqday 15 dhibcood hambaliyo dadaalka waxaana samayseen iyo natiijada quruxda badan ay keenteen aad baan idinku amaanayaa halkaan aad ku muujiseen aqoontiina waxaan leenahay halkaas ku sii wada waxaan u mahad celinayaa dhammaan ka shaqeeyayaasha sidoo kale kaameramankan waan u mahad celinayaa sidoo quruxda badan uu noogu soo diyaariyo sawirada iyo barnaamijka sidoo farxad leh ama firfircoon leh u qabto shaqada waxaan leenahay waa ku mahadsantahay